kooxaha burcadda ah ee jabsada baraha internetka oo fadhigoodu yahay Shiinaha ayaa waxay la wareegeen akoonada emailka 25 hay-adood oo ay ku jiraan hay-ado dawladeed sida ay sheegtay shirkadda Microsoft waxayna soo bandhigeen xogta hay-adahaas. haddaba qaabka looga hortagi karo jabsashada akoonada ayaa waxaan ka wareysanay Cabdalla Macalin Maxamuud oo ahaa madaxa shirkadda teknolojiyadda GlobalNet waxana uu u waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin. jabsashada waa dabeecada maalmahan aad u socday oo ka dhaxeeya dawladaha adduunka ugu waaweyn hadday noqon lahay China iyo Mareykanka iyo wadamada kale European-ka ah sida Ingiriiska, Russia iyo wadamada lamidka ah. hase yeeshee waxaa jira waxba aan laga qaban karin oo loo yaqaan zero day attack oo macnaheedu ay tahay in ciladan ay joogteen aan la ogeynba taasoo keenaysa in hadday ogaadaan dadka wax jabsanaya sameeyaan inay access u helaan inay jabsadaan inay isticmaalaan tii laga ogaanayo ama laga fahmayo marka taasa waxay keenaysaa in khatarteeda ay lahaato. marka waqti intee leegay ku qaadataa qolooyinkan iyagu wax jabsada dadka wax jabsanaya laftoodu isku aqoon ma aha isku khibrad ma aha way kala aqoon badan yihiin kala farsamo badan yihiin marka ma jiro waqti oo fixed ah ay ku qaadato laakiin waxaa la sameeyaa dabcan mar walba uu soo baxo group cusub in la ogaado groupka meeshuu ka yimid cidda ka dambaysa waxyaalaha ay adeegsadaan kadib lagu sameeyo dabagal. dacdadan hadda dhacday lagu eedeynayo in China ay ka dambaysay dabcan Microsoft waxay tilmaameen in group magaciisa uu yahay Storm 0558 ay ka dambeeyeen. Storm ma aha magac iyaga ay baxsadeen waa magac ay u bixiyeen Microsoft. groupkan waxay ku leeyihiin waa group cusub oo hadda soo shaac baxay waxaana ay leeyihiin sida habarka u dhigeen in dawladda China ay ka dambayso oo ay mas'uul ka tahay midda oo intay ku qaadatana waxay ku xiran tahay gruubyada aqoontooda iyo khibradooda iyo toolska isticmaalayaan. waa gartay inta aad ka warqabto aqoontaada qolooyinkan wax jabsada ee u dhaca internetka iyo kombuyuutarada dadka kale ma dad iyagu si iskooda u abaabulan miyaa mise siyaasada iyo dawladda ayaa ka dambeeya isleedahay labadooda way leeyihiin dad way jiraan koox ahaan isugu xiran oo iyaga ujeedada ugu weyn ay tahay in ay dabcan ay ka sameeyaan qaara ama lacag ay ka sameeyaan. kooxaha noocan oo kale ah caalamka oo dhan ay ka dhisan yihiin way isku xiran yihiin waxay wadaagaan khibradda iyo aqoonta iyo waxyaalaha markaa ku cusub saaxadda oo loo isticmaalo in wax lagu jabsado. dhinaca kale waxaa jira kooxo ay dawladaha laftooda ay sameeyaan oo qayb ka ah in ay jabsadaan dawladaha kale ay tartanka u kala dhexeeyo khaasatan waxaa aad iyo aad arrimahan isugu eedeeya Mareykanka, Ruushka iyo macnaha China. weli waxaa la tilmaamaya hadda China in ay dib u habeyn weyn ay ku samaysay qaabkay wax u ataagaan qaabkay wax u dhacaan qaabkay wax u macnaha jabsadaan. dacdadan hadda dhacday dabcan waxay socotay oo ay dhacday bishii May ilaa hadda hal bil ayay socotay lama ogaan lahayn dadka macaamiisha qof kamid ah ayaa wuxuu tuhmay in emailadiisii aysan caadi ahayn oo marka shakiga ayaa wuxuu keenay in dabagal la sameeyo oo lagu soo ogaado. sidee baa looga taxadiri karaa marka in kombuyuutarkaaga ama emailadaada loo soo dhaco? waxaa la samayn karaa ama dawladaha iyo hay-adahaba ay sameeyaan dhowr shay oo kala duwan. midda koowaad waxay tahay in difaaca aad loo adkeeyo oo la isticmaalo qalab casri ah in la isticmaalo applicationo in la isticmaalo firewalls oo waxyaalaha wax lagu difaaco ay kamid yihiin in applicationada laftooda lagu sameeyo update laana haddii applicationkaasi aan lagu samayn update ama aan la cusboonaysiin waxaa laga yaabaa inuu halis u yahay in la jabsado. intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan in dadka laftooda lagu siiyo tababar inay feejignaadaan oo waxyaalaha aan caadiga ahayn ee la soo socodsiiyaan dawladda iyo maxaa shirkadda marka ay u shaqeynayaan. Mareykanku ma laga yaabaa marka iyaguna in ay Shiinaha weeraraan oo ay argudasho sameeyaan? wallahi su-aashaas waxaaba hadda dhawaan ka hadlay safiirka u jooga wadanka China macnaha magaalada London waxaana uu tilmaamay in Mareykan uu yahay global hacking empire oo macnaheedu ay tahay dawladda ugu weyn dunida oo samaysa hacking-ka ama wuxuu ku tilmaamay sidoo kale inay yihiin inay jabsadaan internetyada inay jabsadaan adduunka inay jabsadaan. marka dabcan Mareykan laftiisa lagu eedeeyaa eedeymaha badanaa kama jawaabo Mareykan oo ka gaabsada uu ka aamusaa laakiin dabcan way jirtaa in aad loo eedeynayo Mareykanka laftiisa inuu wax badan jabsado. ugu dambeyntii sidee shirkadaha Soomaalidu isu ilaalin karaan? waa runtii su'aal aad muhiim u ah in shirkadaha Soomaalida waxay hadda ay dabcan ay soo galayaan suuqan digital oo xawlaadihii bangiyadii in muddo ah dadku aqoon badan uma lahayn dhinaca IT-ga target maysan ahayn laakiin hadda waxaa soo badanaya in dadku ay wacyigooda uu soo dhismo ayna keeni karto in dadka qaarkood ay ku dhiiradaan in ay attack ama jabsasho noocaas oo kale ay sameeyaan.
marka waxaa muhiim ah shirkadaha Soomaaliyeed in ay qorshahooda ku darsadaan halista ay leedahay in systemkooda uusan difaacnayn marba haddii loo dhacayo dowladihii adduunka ugu waaweynaa oo ku bixinaya hanti iyo kharash aad u badan lahaa aqoontii iyo khibradii maxaad ka filan kartaa haddaba shirkadaha iyagu markaa soo kobcaya ama soo korcaya marka aad ayay muhiim u tahay in ay arrinta xooga ay saaraan kana feejignaadaan ayna shaqaalaysiiyaan dad aqoon iyo khibrad u leh. Cabdalla Macalin Maxamuud madaxa shirkadda Global Net ayuu ahaa oo Saalimiin u waramay.